daawadayaal maanta waxaynu bilaabi doonaa inaan duubno ama muuqaal u rogno buugga laydha Amiina Al-Mufti ee uu qoray Fariid Al-Faluuji kaasoo uu afkeena hooyo ku turjumay qoraaga Soomaaliyeed ee Kamaal Axmed Cali oo ku magac dheer Kamaal Marjaan. buugga oo dhammaystiran ma soo wada qaadan doono balse waxaynu kolba ka ustuuxi doonaa meelaha ugu xasaasisan iyo qisooyinka la yaab kale ee ku dhex jira. haddaba ku soo dhawaada hordhaca buugga Amiina Al-Mufti. وابقل يودي ركبابيرنا هيو بركاو فيراي برقا له مقارين إسرائيل معبودين بريد حين تودقو ارتكو مع أفايتين وابقل يودي ركبابيرنا هيو بركاو فيراي برقا له مقارين marar badan ayuu sirdoonka Israa'iil ku guuleystaa inuu helo basaasiin Carbeed oo uga dhex shaqeeya dalalka iyo dadyowga Carabta ah gaar ahaan Falastiiniyiinta oo ay xog joogta uga baahan yihiin iyo dalalka ku xeeran ee Masar, Suuriya iyo Urdun. buuggani waxa uu ka warramayaa Amiina Al-Mufti oo ahayd gabadh Carbeed oo kaalmaha hore kaga jirta liiska dadkaas Carbeed ee laga dhigay basaasiinta Yuhuudda u adeega. waa noloshii qoyskeeda iyo koritaankeedii carruurnimo, xidhiidhkii jacayl ee cadaawadda koowaad ugu beeray Carab, jidkii halowga ee Amiina ku hogaamiyey basaasnimada, guurkii Yuhuudiga iyo sida ay dhimashadiisii dariiqa ugu jeexday basaasnimadeeda. Amiina waxa ay guursatay wiil Yuhuudi ah, diinta Yuhuudda ayaa ay qaadatay, magaceedana waxa ay u beddeshay Ani Moshe. waxa ay gashay basaasnimo ka dhana Falastiiniyiinta oo ay u arkaysay inay tahay aargoos ay kaga aargoosanayso wiil Falastiini ah oo jacayl carruurnimo kaga baxay iyo dalka Suuriya oo soo riday diyaarad dagaal oo uu waday saygeedii Yuhuudiga ahaa. colaadan isbarkan ayaa keentay inay dagaal arxan-darra la gasho Falastiiniyiinta. waxa uu buuggu soo bandhigayaa xirfadda iyo tayada sirdoonka Falastiiniyiinta, fashilintii basaasnimada iyo xeeladii yaabka lahayd ee loo maray ciqaabtii iyo baadhistii lagu ogaaday basaasnimadeeda. Amiina Al-Mufti waxay ka mid tahay basaasiinta ugu caansan ee ay Mossad ka shaqaalaysay Carabta, magac fiican iyo soo dhaweynna kala kulantay Yuhuudda oo u bogay daacadnimada ay ugu shaqaysay iyo culayska xogaha ay soo xiraysay, oo badbaadisay nafo badan oo Yuhuuda, sababna u noqotay in laga hortago howlgallo ay qaarkood hubaal ahayd inay dhaawac gaadhsiin lahaayeen ammaanka Israa'iil. waxa aanay ku mutaysatay maamuus gaadhsiisay in magaceeda lagu daro taallada halyeeyada Mossad lagu qoro. waa dhacdooyin run oo qaarkood ay u dhadhamayaan qaab aanay hore maskaxdu u sawiran karin sida ay u dhici karaan arrimo noocan ahi. sida uu qoraaga buugga Amiina Al-Mufti ee Fariid Al-Faluuji ku tilmaamay, waa gabadh qurux aanay dhaayaha raggu ka jeedsan karin loo dhameeyay oo ku darsatay cudooni, joog iyo jidhba leh. waxa uu sii dheeraa maskax badnaan iyo faham aad u heer sarreeya. tilmaamahaas oo ay yar tahay cid ay isku raacdo ayaa iyada u suurta geliyay inay dhex gasho ururada hubaysan ee Falastiiniyiinta ee xarumahoodu ahaayeen dalka Lubnaan, gaar ahaan Beirut iyo koonfurta dalka Lubnaan. waxa ay gaadhay xafiiskii hogaamiyihii Falastiiniyiinta Yaasir Carafaad oo ay ka heshay soo dhaweyn albaabadiisu u wada furan yihiin iyo inuu siiyo dukumeenti rasmi ah ay ku dhex mari karto kuna dhex geli karta Falastiiniyiinta iyo hay'adaha kala duwan ee ururada Falastiiniyiinta iyadoo sheeganaysa dhaqdada walaalaha dhiban. sheekadani waxay si fiican inoo baraysaa qaybo ka mid ah loolanka adag ee u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil oo laga yaabo in dad badan aanay xog sidan ka haynin, marka laga reebo inay og yihiin dad rayid ah oo dhulkooda la qaatay kuwaasoo doonaya inay dhagax tuur ku soo ceshadaan xaqooda. waxa kale oo laga baranayaa duruus la xidhiidha cilmi nafsiga iyo shakhsiyadda cajiibka ah ee dadku sida ay u noocyo badan tahay. tusaale ahaan, qoraa Fariid Al-Faluuji waxa Amiina inoo barayaa inay tahay mid yaab badan oo isburinaysa, taasoo inoo cadaynaysa in nafta aadamuhu ay weligeedba tahay wax in la wada fahmo ay adag tahay, waana sababta uu ugu hungoobo qofka aan faham ka haysan shakhsiyadda dadka iyo sida ay u adag tahay barashada nooceeda, ama in aadamuhu aanu inta badan lahayn qofnimo run ah oo loogu soo hagaago balse ay tahay in wax kasta laga fisho.
buuggani xiise uma samaynayo keliya dadka xiiseeya sheekooyinka sirdoonka, balse waxa uu sidoo kale macno u samaynayaa dadka jecel sheekooyinka jacaylka iyo arrimaha bulshada. waxa ay ka qaadan karaan casharro iyo waayo aragnimo cilmi nafsi ah oo aadamaha la xidhiidha. qisadan waxaa si dhammaystiran u qoray Fariid Al-Falluuji buuggiisa Amiina Al-Mufti, waana buugga laga soo dheegtay ama ay ku sar go'an tahay sheekada, laakiin kuma koobna oo maadaama ay dad badani wax ka qoreen sheekadan, waxa aynu ku dadaalnay inaynu buugga Fariid la akhrino qoraallo kale oo aynu ka helno faahfaahin dheeraad ah iyo dhamaystirka meelaha laga yaabo in xog dheeraad ah ay ku daraan. tusaale ahaan, meelaha aynu qoraallada ka soo qaadanay waxaa ka mid ah filimka taxanaha ee inan reer bari ah Fataatun min Sharq oo uu hal abuuray Axmed Cali Axmed oo u dhashay dalka Masar. filimkan waxaa laga sameeyay sheekada Amiina Al-Mufti, waxa isaguna sheekadan si fiican wax uga qoray qoraaga caanka ah ee reer Masar Salaax Imaam oo qisadan isagu u bixiyay aqoon-yahanadii khiyaamada balwadu u noqotay.